السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. qufaca iyo hargabka soo noqnoqda waxaa keeni kara waxyaabo kala duwan. Mararka qaarkood waxaa dhici karta inay keenayso arrin sahlan oo aad gurigaaga ku xallin karto. Waxaa kaloo dhici karta inay sababayso arrin intaa ka weyn oo u baahan inaad dhakhtar la xidhiidho. Haddii haddaba qufaca iyo hargabka soo noqnoqda ay tahay arrin sahlan, waxaad ku xallin kartaa gurigaaga. Si aad arrintaa u samaysana, waxaad diyaarsanaysaa koob barhkii oo aad ku shubtay biyo aad karkarisay. Kadibna waxaad kusii daraysaa malqacad kurkuma ama huruuda. Waxaanad kusii daraysaa malqacad yar oo ah filfisha madow. Kadibna waxaad kusii daraysaa malqacad malaba. Intaa kadibna saddexdan shay oo aad isku dartay waxaad cabaysaa maalin kasta. Waxaanad wadaysaa ilaa inta aad ka xaqiiqsanayso inay mushkuladaasi meesha ka baxday. Waxaa kalood samayn kartaa in koob biyo diirana aad ku darta 2 malqacadood oo ah biyaha aad ka miirta liin dhanaanta. Kadibna waxaad kusii daraysaa malqacad malaba. Waxaanad cabaysaa maalin kasta 2 jeer muddo hal wiiga. Dariiq kale ayaa isna in koob caana oo aad diirisay aad ku darto malqacad malaba oo saafi ah. Kadibna aad cabta hurdada ka hor. Waxaanad sidaa ku macaasalaamayn doontaa qufaca iyo hargabka soo noqnoqda insha Allah.